dhammaan asxaabta waa idin salaamay ku soo dhawaada channelkii Cabdiraxmaan Boos. maanta halka waxaan ku soo gudbinayaa applicationo traffic inuu jiro laakiin aynan isticmaalin in badan naga mid ah bulshada. waxaan ognahay in telefoonada mararka qaar naga lumaan, naga kaxado, sawirada qaar gacanta nooga dhacdo ama ka soo dhileedna ama qofna naga dhileedo in waadka hadhow in dib u helno sawirada iyagoo noo muhiim ah. maanta halka waxaan ku soo gudbinayaa application la yiraahdo Google Photo. application-ka wuxuu ku sahlayaa sawir walba oo telefoonka ku qaado ama ku shubato adoo soo gala telefoonka iyo video walba soo gala inuu ku xafido ama ku xareeyo ilaa iyo inta doonto. marka application-kan weeye uu soo kacayaa waa inaad account Gmail leedahay. markaas waxaa la sync in kadib next halka waa inaad furtaa daatada ama wireless-ka kulliye. confirm waka soo dhigaya wax walba ku jira gallery halkan ayuu soo dhigay oo sawir iyo video ah. marka waxa laga rabaa inta kaliya ma inaad furato folderada ee sawirada kugu jiraan iyo kuwa video kugu jiraan si uu u soo guuriyo halkan u keeno. hadda getting buu wadaa. fadlan subscribe, like ta wixii talay tusaale commentiga. yar marka waxa taabanaysa calaamada menu-ga setting backup taabanaysa ugu sareysa backup device waa ka nan way wada fur folderada dhamaantood mid walba folderada kamid ah cusub oo samaysata uu xiran yahay inaad furtaa mar walba ka warhaysa. marka wada furto waa inaad doorataa limitka waa free limit baan dooranayna hadii ka inta kale iibsiga lacag weyn inta kale iibsanaysa free limit ka 15 GB way. hadduu isticmaalka noqdo qof isticmaalkiisu badan yahay isticmaala si fiican isticmaalo waxay ku sii doonaan dhowr boqol MB 300 200 hadba in bay ku siinayaan waa inaad aqbasho mar walba aad ka warhaysa telefoonkaaga. waxaan arkaa inuu qaado waa sawirada iyo video kaliya. hadda waa ka wax alaala iyo wixii ku jira gallery dibadda yaal ayuu halkan soo gelinaya oo video iyo sawir inaad u xunka ilowdo maahane si kale ku weymay sawiradaada. hadda telefoonka soo iibsato